السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal subscribe noo saaro channelkeena Millennium Abdulqaadir. soo dhawaada walaalayaal, like noo saaro muuqaalkeena si meel badan u gaaro, sidoo kale asxaabtaada la wadaag, u share gareey insha Allah. maanta waxaan halkan ku qaadan doonaa oo aan uga hadli doonaa sida loo xariisto scholarship-ka dalka Japan. scholarship-kaas ayaa isla arkaynaa maanta Soomaalida kaliya u gaarka ay tahay, loogu deeqay ilaa bishan Abriil, ilaa maalmo ka kooban oo May bilaas ayuu soconaa, kadib waa xirmi doonaa. marka sida loo apply garanayo ayaan isla arki doonaa. iga socda marka koowaad Google-ha soo kicinaysaa, waxaan ku qoraynaa embassy Japan in Somalia. Japan embassy in Somalia kanaan qaadanaynaa. okay ayaan dhaynaa. marka midkan ugu koreeya ay sawirka saaran ayaan ku dhufanaynaa. shaqa buu wadaa, marka waa soo kacayaa, waa soo kacay. marka waa kana, waa website-kooda ay leeyihiin, waa safaaradda Japan ee waddanka Soomaaliya ku taasha. website-kooda waa marka waxaad ku dhufanaysaa, hoos baad aadaysaa, meeshaanaad ku dhufanaysaa Japanese government next scholarship-kan ayaad kala ku siinaysaa. meeshaanaad ku dhufanaysaa Japanese government next scholarship. marka application-ka waa kana. scholarship-kan kaliya wuxuu u furan yahay Soomaalida kaliya ayaa apply gareyn kartaa, kuwaasoo xiiseynaya inay iska diiwaangeliyaan master degree or doctoral course oo Japan ah. PhD iyo master degree waaye. shuruudaha laga rabo qofku wax waaye, waa inuu Soomaali yahay, waa inuu haddana da-diisa aysan ka weyneyn 1990kii 2 Abriil wixii ka dambeeyay ayaa la rabaa bis. wixii ka horeeyay ma soconayso. marka waa inuu qofka haddana asalaha waa inuu yahay qof bachelor degree waa inuu haystaa. marka master degree xitaa waa inuu haystaa. master degree soo haystaa, master kale wuu baran karaa. marka inta ay soconayso scholarship-kan waxbarashadan waa 18 bilood or 2 years, waa 2 sano. waxaa ku dhex jiro 6 months of Japanese language studies, 6 bilood oo la baranayo luqadda Japan ayaa ku jirto. marka scholarship-kan waa free waaye, waa free, 100% free waaye. marka codsadaa waxaa laga rabaa inuu buuxiyo form inta kasoo degsanaa, formkaas soo buuxinaa. marka jadwalkan waa sida scholarship-ka waqtigay bilaawatay Abriil 4 bilaawatay ayuu furmay, waxay dhammaanaysaa sidoo kale May 3 2024. June 12-keedana imtixaan baa la qaadayaa. June 12-keedana interview baa la qaadayaa, waa isla hal maalin. June 24-keeda natiijada imtixaanka oo ayaa la soo bandhigayaa, natiijo koowaad. markale haddana sidoo kale October to November
ayaa sidoo kale secondary screen in Tokyo information ayaa lagu soo bandhigayaa waxaa la xiriira imtixaankaas dalka Japan magaaladiisa Tokyo January 2025 waxaa la helayaa sidoo kale final results ayaa la helayaa natiijada ugu dambeysay ayadoo sidoo kale haddana dadkii maxaa la dejinayo Tokyo dadkii kusoo baxay ku guuleystay scholarship kan April or September 2025 waxaa bilaabanayso departure in Japan dadkii maxaa Japan la dejiyo ayaa bilaabanayso Japankaas loo daabulo marka form ayaa jiro formkaas ayaan isla raadinaynaa oo qofka laga rabo inuu buuxiyo meeshaan aan ku dhufto okay formka waa kana formkan ayaa soo degsanaysaa formkan ayaa soo buuxinaysaa sidoo kale codsadaha sidoo kale qofka uu dhow barnaamijkan qofka dhow waxyaaba dokumentiga waxaa laga rabi doonaa markuu xareysanayo baasboor iyo warqad caafimaad formku waa kana ilaa 6 page waaye af Japan iyo wuxuu ku qoran af English marka kulay Englishkaas ku fudud Englishkaas isticmaal meelaha wixii loo dhahay buuy instruction oo leeyahay si fiican isaga akhri marka information kaas waxa faham weysidna nala soo xiriir commentiga nagala soo hadal inta ku caawin karna ku caawinayna information iska fudud qofkii oo kulay wax soo bartay oo jaamacad ka soo baxay wuxuu fahmi karaa waaye formkana waxaan leenahay dawladdu waa soo degsanayna formkan marka formka markaad buuxisid waxaad geenaysaa safarada Kenya dalka Japan ku taasha safarada dalka Japan safarada dalka Japan ku taasha magaalada Nairobi Kenya ayaad geenaysaa meesha waxay information ka laga wareegaya ayaga sii gudbinaya marka meeshaas baad geenaysaa marka waxaad fahmaysaan insha Allah commentiga noo soo qora insha Allah nala soo xiriira khayr baan rajaynayaa Allah idin fududeeyo dadkii ku guuleysta Allah idin ka dhigo haddaad weli subscribe noo saar walaal channelka subscribe noo saar waxyaabo badan oo faa'iido ardayda Soomaaliyeed u leh ayaan soo bandhignaa barnaamijyada dhanka online lagu shaqaysto ayaan soo gelinaa sidoo kale سؤال إن شاء الله خير بين رجالنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.